السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناس كسر دوا موفي رياكشن وحن داودا صاحب على فيلم كرونث وملايلم كأسو كلتنا فيلم دم باريس آيان كلا بحي وفيلم أدو حساب بدنا تدبات كواد جناي صباح مشروع جولستو هاي إلا هي اللي سكدي كرك دي مركي جناع سي طبعا كرر وكل دبات دي بد إدل أيضا شنكر لو قرش جري بجت كي يو بيزنس كي تعمل سكدي إنه فيلم كحرجين أنا دعوتين أنا كرونثي في لشدة أن قبوا حياة فيلم كأنا سي 5 ستار مركي ويرتهدان هنا 5 مسينا 4 ستار أن سي ما دام ملايلم ويهدم بباريس لكن حوجا وحير وكسر دع فيلشدة أن قبل مركي فيلشدة أن قبل أن قصة لا فيلم كان دنكي 3 ستار وطبعا وقلما ورتشا كذا روشن مثوي دليب ما مكل عن عسكري جنك أو شهر بولا على الكوس كواتقاني قطرت يركل لأن يردا لبا عسكر وحيكو قرين كلتن كهبين كي قرين واجبات كني جوتان ولا شقوا هاي عسكرته وحوا هبين كي وحكيس إلى كل ما عادي ما عسكرت أنا جسلانة وتاعي عسكري كستو شقة كجرو هبين كي ولي بشقي عادي ما صوبت تيم كاس هولها قبنايان marka fiilis labadan askari taliyaha iyo midka kale oo gaari u wado oo filimka sheekadu ku saabsan yahay one night kaliya markii 6 pm ilaa iyo 6 laga soo gaaray aroornimo waa 12 maqrib ilaa 6 subaxnimo shaqada ay ku jiraan ma leekartay ma hal mar xataa ma hakanaya maanta dhan gaari ay wataan bar stationka laga soo wacaa telefoonka waxa la hayay meeshaas taga waxa ka jira meeshaas taga waxa ka jira meeshaas taga shu'uuntooda gaarka way haysataa marka la fajirkan dhalinyarada cunuggeeda u joogto ka xanuunsan odayga dabcan askari weyn taliyaha dabcan xaaskiisa xoogaa aan maskaxiyan fadhin waxa waa shu'uuntooda gaarkan u haysataa shaqooyinkan habeenkii ay qabanayaan unbelievable waa waxyaabaha taskiyada kala duwan ee la kulmaan caadi ma filimka saas ugu socday waxa aan rabay inuu ku dhamaado shaqooyinkaas ee ahaayeen inay ka soo dhaxbaxdo kiis kulul oo caqabad badan ay kala kulmaan ugu dambeyntiina ayaga la gadoonto ama ayaga ay guuleystaan waliba exactly ayaga ay guuleystaan laakiin team ma dhicin horta marka filimka daawanaysa habeenku ma caajisaysa hadba kiis la kulmaan xalanayaan laakiin problemka oo filimka soo ku dhamaadaan ka helin sababtoo qaabka ku dhamaada qaab marax ee taasa marka that's why u siiyay filimkan 3 star inkastoo ka badan u qalme sababta ugu weyn waxay tahay kiiska oo ku aadan gabadha cid maalqabeenta ka soo jeedo yarka faqiirka isdiclaanayo waxay ahayd in dabcan kiiskaasi ayaga ku guuleystaan way soo qabanayaan labada qof isla baxsanayaan keenayaan cidii baad goob ugu jirto hantida leed wiilkoodii waxa soo xidhan cunug waahayna gabadhii ay idinna wiilkii dabcan xabsiga imaado ayadoo la iska daw wareega mid kamid ah dadkii dhalinyarada oo wiilka saaxiibkiisa gabadha jeclaaya gacanta wuxuu ku dhimanaa cidii taajiriinta ahay kiiska waxa loo rogaabay in lagu gadinayo labada atooro midna la xiraayo oo dabcan xabsiga uu galayo midna la soo deynayo wax oo qaab dar badan oo ku dhamaad macnaha cadaaladda filimka dadkii la haybo lama siin waxa lagu gadiyay sheekadii askartiya lagu gadiyay si loo qariyo kiiskan dabcan gabadhan hantida in qofkan faqiirka uu san guursan karin anyhow marka meeshas waa qaadan waa sida directorka uu dhigay laakiin sida kale habeenada night encounter-ka hadba kiiska la kulmaan brilliant waa dhibkay marayaan nolosha askarnimada lagu tusayo waajibaadka ay gudanayaan waa aska jiifna anaga laakiin dadkaas shaqada ay hayaan ma maleey kartid dartooda dabcan madaxoodan ku jiifna marka shaqadaas ay qabanayaan as police taski iyo howlaha habeenkii ay qabanayaan unbelievable ma laakiin subjectiga si lagu dhameeyay ani dhinacii kama helin saas ay tahay marka filimka Ronth expectation kan qabay iyo saa idinka 5 star u filaysan uma siin saddex xidiga dhankayga si marka idinkan aragtidiina ka dhibto waan kala raa'id duwanaan karaa soo dhawaada marka waxaan soo qaadanaa filimka Sayaare talaadadiisii koowaad ganacsi waalida uu sameeyo isniintiisii koowaad uu ka badnaa awgeed shabakada box office indii waxay soo qaateen top of all time Tuesday iyo ganacsiga ay sameeyeen filimada marka mashruucan mar kale ayuu ganacsi waali ay sameeyay kadib markii uu soo xareeyay saaxiibayaal ganacsi gaaray ilaa iyo 24 karoor bar wuxuu noqday filimka sagaalaad ee dabcan talaadadiisii koowaad uu lacagta badan filimada waaweyn la tartama filimkan sida hadda muuqato waliba ayadoo wax fasax aan jirin inkastoo qiimaha tigidhka hoos loo dhigay sidoo kale tan waxa la marka la fiirsay Sayaare ganacsi uu sameeyay Faris Tuesday waliba hadii nan holiday la fasax aan jirin bushba kaliya ka badan inta kale laakiin fasaxay ay ka faa'iideysteen sida hadda muuqato sanadkan xitaa wuxuu garaacay Java oo talaadadiisa ku wada filimka uu lacagta badan filimkan Delhi Uttar Pradesh another level oo ku socda sida hadda muuqato lama gaari karo industry waxay leeyihiin marka muhiimadda national numberska ee siinaa waxa ka muhiimsan filimkan ganacsiga uu ka sameeyaa single screenski sida waalida u gadmaayo Sayaare oo kale tan waxa la wuxuu muujinaa waayihii dahabiga inuu soo celisida filimada Jawani Animal oo kale waxay ahaayeen filimada dabcan xitaa action oo u kala qaybsanaa single screenska multiple sina ka gadmaan kana sidoo kale ugu noqda so love story ayaa labada dhinacba si isku mid looga daawanaa Gadaartu waa ugu lacag badan talaado koowaad wuxuuna soo xareeyay 55 karoor wuxuu ka faa'iideystay fasaxii National Holiday oo ah 15 Agoosto Bushbatu wuxuu soo xareeyay 34 karoor maalin shaqo ahayd Animal wuxuu soo xareeyay 33 karoor talaadiisa koowaad maalin shaqo ahayd Bahubali wuxuu soo xareeyay 29 karoor Walking Day ahead Simba wuxuu soo xareeyay
27.93 karoor fasax qaran uu ka faa'iideystay waar wuxuu soo xareeyay 27 karoor fasax uu ka faa'iideystay kig wuxuu soo xareeyay 26.82 karoor asna fasax uu ka faa'iideystay street wuxuu soo xareeyay 25 karoor wuxuu ka faa'iideystay fasax qaybeed ama gelinka dambe fasax jire sayaari wuxuu keenay 24 karoor bar maalin shaqo tobanaad waxaa ku jira Java oo soo xareeyay 24.8 karoor asigana maalin shaqo la daawaday Houseful for asna wuxuu soo xareeyay 24 karoor fasax qaybeed gelinka dambe fasax jiru ka faa'iideystay Jawan wuxuu soo xareeyay 23 karoor talaadadiisii koowaad Dangal wuxuu keenay 22 karoor Sanju wuxuu keenay 22 karoor Tiger Zinda wuxuu keenay 22.60 karoor 15 film ee talaadada koowaad ugu lacagta badan waay sayaareen wuxuu soo galay sagaalaad filmadii waaweyn ka film la tirsanay meel kastuu aadi karaa marka anywhere filmkan aadi karaa shan maalmood wuxuu ku soo xareeyay 131 karoor bar lacagta rasmiga ah box office intii fariisiyeen shanta maalmoodna maalin ganacsigiisa 20 karoor uu ku hoosay ma jirto box office intii sidoo kale waxay leen filmkaaneeto hadda 300 karoor waxba lama aasoo ku socdo just waxay leen 400 karoor xitaa uu gaari karaa hadii toddobaadka labaad uu sii gadmo ganacsi extraordinary uu sameeyay toddobaadkiisa koowaad wuxuu soo xareyn doonaa 170 karoor saas wuxuu ku garaacayaa Ray 2 Houseful 5 Sitare Samin Bar Sikandar Jad kulli waaba la soo dhaaf waxa soo dhan hal toddobaad wuxuu ku noqon filmka labaad sanadkan ugu lacagta badan wuxuu raacdeysan doonaa waxay tahay Java iyo sidoo ku gaari doona sugan doona laakiin ninkan lagu magacaabo ahaan bande wuxuu noqday star banaan ku dhacay iyo gabadha Anit Bade oo laga tagi karin ayadana sida ay filmkan u dishay inaba caadi ma ay kaalinteed u qaadatay nasiib wacan lana kulay sayaari waxa waa mahari doona saan loo hadalhaynta u haysan doona dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee markii aan fiirnay saaxiibada qiimaha badan Salman Khan ayaa dabcan filmkiisa lagu magacaabo dabcan Galwan Film The Battle of Galwan bisha August ee kaabiga nagu soo hayso shaqo ahaan bilaabi doona sidoo kale tan Sallu waxa la sheegay in hadda dhawaan ku dhawaaqi doona teamkiisa kastiga iyo kruuga si ay kaalimahooda u qaataan kadibna waxa la bisha July 12 cisho ama 15 cisho bamba lagu duubaa kadibna safar dheer dhankaasi deegaanka la dag ee la aadi doona Salman Khan jilaayash la sameeyay la wada sugan doona si rasmi lagu dhawaaqo anagoo ka warqabna gabadha lagu magacaabo Jandari Gari Sinkari in lagu dhawaaqo in atrisha kuwaad ka tahay Sallu wuxuu rabaa 4 bilood filmka inuu ku dhameystiro Janaayo 2026 oo diyaar noqdo si mashruucan loo daawado sida hadda ee la soo daabacayo sidoo kale waxa soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka shahidka boor film uu sameyn lahaa ku saabsan Chhatrapati Shivaji Maharaj waa la iska baajiyay sida uu director Amit Ray shaaca ka qaad maalin walba iska soconay Shivaji Maharaj sababta waxa lagu soo qaraabtay Ajay ku qaraabtan Ajay ku jila Vicky Gushala ku qaraabto Jaba sameey maalin walba ma soconaysa marka Chhatrapati Maharaj dadka waa ka batay saadagtay director Amit Ray wuxuu leeyahay filmkan dib u dhignay directorkan OMG2 ku canbax inuu sameeyay asigoo la hada shabakada midday wuxuu dhahay filmkii wuxuu u baahan budget 200 ilaa 300 karoor ah shahidka boorn haatan wuxuu dhahay filmka Fishal Barajwaaj ku mashquulsan u sameynaya mashaariic kale saadartay wuxuu dhahay projectigan dib astaagreena gabi ahaanba markii ay ku haboontaan sameyn doonaa uu leeyahay waa wax ka jira male sababta maalin walba lacagtaas walida cid u qoori karta mala Chhatrapati Shivaji Maharaj waa lagu qaraabto shahida waa lagaaga hormar la dhigi karaa simbali hadii runtan isku sheegay saas oo filmkan u baaqana saaxiibayaal sida hadda rasmiga la soo daabacay dhinaca kale ninkii odaga Pawan Kalyan filmkiisa Hari Hara Vira Malu update ka soo baxay inaba caadi ma saaxiibayaal 35 karoor ilaa 40 karoor oo haatan u dhaxay advance bookingka qiyaasta xilli hore shabakad T2B Day1 waxay leedahay filmkan 75 karoor ilaa 80 karoor ay ku bilaaban doonaa ganacsigiisa guud World War Gross Power Star Pawan Kalyan awoodiisa si 100% u shaqeysay hadda waxa ka dhiman oo kaliya waxay tahay content kaliya in dhahdo waxaana laga dhahaa superstar filmka marka hore awoodaada ku gad kadib la noqoto sheekada sababta ee 70 ilaa 85 hadduu ku furmo Day1 Pawan Kalyan wax kale uma baahno dibad iyo dalna hadda Brazilka 35 karoor ilaa 40 karoor u dhaxay waliba 40 karoor ay leen shabakada Andara Box Office World War laga hadlayaa filmkan waxa la marka Power Star Pawan Kalyan Spag wali Rampage si aan caadi u soo laabtay waxaan suganaa waxay tahay marka saameyntiisa iyo sida uu wacdalaha u dhigi doono Pawan Kalyan oo dabcan heranay space ku filan oo shaleemooyinka ugu badan la siin doono theater county xitaa aan soo qaadana filmada Telugu ee shaleemooyinka ugu badan la siinayna qayb ayuu ka noqonaa Hari Hara Vira Malu saaxiibayaal maadaama la siinayo theaterada la soo daabacay 2850 theater ayaa la siinaa all time Telugu theater county markii la dhahanay kuwa badan ka badan Pushpa 2 oo kale waxa la siiyay 10410 theater la siiyay RR waxa la siiyay 10200 theater Bahubali waxa la siiyay 8500 theater ilaa 9000 oo theater dibad idal kalkii waxa la siiyay 8400 ilaa 8500 theater Saho waxa la siiyay 7978 theater Devar Barton waxa la siiyay 7100 ilaa 7250 theater Red Sham waxa la siiyay 7010 theater la siiyay Adiburush waxa la siiyay 7000 oo theater iyo balaas wixii u raaco Game Changer
waxaa la siiyey 6550 tiyaatar, Salaar Part 1 waxaa la siiyey 6200 tiyaatar, Sayaara Narasimha Reddy waxaa la siiyey 4632 tiyaatar, Bahubali waxaa la siiyey 4000, Pushpa Part 1 waxaa la siiyey 3000 oo tiyaatar iyo Balas, Liger waxaa la siiyey 3000 oo tiyaatar, Hari Hara Viran Maluna 15aad ku jira waxaa la siiyey 2850 tiyaatar sida la soo daabacay, taasoo ka dhigaysa Pawan Kalyan taariikhda filimkiisa tiyaatarada ugu badan la siiyey ebed. nasiib wacan lana odaga marka waxaa waaye wixii kale la imaado arki doona, laakiin hadda waxaa ila muuqato in filimkan day one oo si massive uu ku furmi doono, wixii kalena waxay ku xiran tahay contentiga iyo sidoo kale sheekadiisa ay noqoto. caawa gelinka dambe waxaa la meelaha qaarkood waxaa laga sameyn doonaa barnaamijyada sida u badan tahay beri oo khamiisna si toos ah grand release loogu sameyn doonaa tomorrow, iyadoo inta badan majilayaasha haatan dheerta lugu Pawan Kalyan ee garab taagin sida la soo daabacayo. hadda markii aan firno shabakadaha Telugu waxay leeyihiin filimkan fast film waa sold out tickets meelaha qaarkood. Hyderabad oo kaleeto waxaa loo diyaariyay 111 show, 100 show kamid waa buuxdaa sida muuqata. Bangalore 58 show waa loo diyaariyay, 47 show kamid full waa. Vizag 55 show waa loo diyaariyay, 42 show kamid full waa. Vijayawada 28 show waa la gatay oo full house waa. Guntar markii la dhaho 31 show waa loo diyaariyay, 29 kamid la gatay. Kakinada deegaanka lagu magacaabana sidoo kale 21 show, 20 show waa la buuxiyay. Telugu markii la xisaabiyo waxaa la Power Tufan dhici doonto sababta ay space-ka 90 ilaa 100% waa buuxa. marka hadii sheekada ay fiicnaato Pawan Kalyan isbaag, hadii sheekada xumaato laakiin day one la ku ekaanaymaan wax kale ta baaba ay noqon doontaa. marka nasiib wacan Pawan Kalyan leenahay wuxuu soo kordhin arki doonaa kulli. hadda hadday noqoto Highland trendingka filimka Hari Hara Viran Malua meel kasta saaxiibada qiimaha badan Pawan Kalyan iyo filimkan Bobby Dollar uu keenay wuxuu la imaado waa sugan doonaa. dhinaca kale waxaa soo qaadan karnaa saaxiibayaal ciwaanada qaybka markii la fiiriyo dhanka waxaan u jeedaa megastarka caanka ee Chiranjeevi iyo Nayantara superstarada ee filimkooda dabcan ninkii ay sheegay directorka caanka uu iska leeyahay ninkii sameeyay filimka hadda ugu dambeeyay Anirudh Badi filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahay dabcan ilaa hadda aan laga xiisa dhicin filimku uu sameeyay Vantikesh oo dhawaan soo baxsan Karatika Fasunam filimkiisa xiga haatan shaqada dhankaasi Kareel waa la soo gabagabeeyay. waxaa lagu duubay xoogaa jecel hal heesa lagu duubay deegaanka Kareel ee Malayalamka ee filimkana mega 157 lagu yar ama Chiranjeevi filimkiisa 157 wuxuu soo bixi doonaa Sankarantiga ama Janaayo 2026 uu soo baxa. haddana waxaa la almost 80% waa la duubay wax yar harta. marka Anirudh Badi iyo ninka lagu magacaabo Chiranjeevi shaqa ka go'an projectkan oo kala bixirmaan sida hadda muuqata. nasiib wacan leenahay wixii ka soo kordhin waa arki doonaa aqyaarta qiimaha badan. saaxiibayaal guud ahaan barnaamijkan intaas soo nooga eegaya, wixii kale soo kordh waqti kale isugu imaan doonaa. xasuusin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar, waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.